golaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay qaybtii ugu dambeysay ee golaha wasiirada iyagoo ka koobnaa oo iskugu jiray 2 wasiir iyo 5 wasiir ku xigeen waxaanay ka koobnaayeen wasiirka wasaaradda cadaaladda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo wasiirka xigeenka wasaaradda jidadka iyo gaadiidka waxay mudanayaashu gudagaleen inay ansixiyaan oo ay gacanta u taagaan golaha wasiirada ee maanta hor yimi ayagoo dhammaan wada ansixiyay wasiiradii maanta golaha hor yimi waxa markii kala fadhiga dhamaaday wasiirka wasaaradda cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta taariikhdu tahay bishii Shanaad ee bishii 2018 oo golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland naasiyo cod aqlabiyada waxa ugu mahadcelinayaa golaha wakiilada asxinta naasiyeen iyo madaxweynihii soo doortay insha Allah waxaan rajaynayaa in ummadda dalkayga u qabto cadaalad siman insha Allah wad maasantii dhammaan saxafiyiinta وعبد الرحمن عبد الله عيسى عبد الرحمن جومبو تلفزيون عالمي GTN TV مقالة هرقيسة.